بوليمو الكي برجر محمد صالح waxaan u mahadnaqayaa ururka khayriga ah kaas casiir kulmiye dhammaan meelaha uu kala joogo dunida dacaladiisa deegaanka inta meel ku kala sugan yahay waxaan kala u mahadnaqayaa gruubka inta ku bahowday ama inta ku jidha iyo kan ku jidha madasha dhammaantood waxaan ugu hambalyeeynaa ducaan u dirayaa sida wanaagsan iyo isla qaamitaanka leh loogu kacay 2019 ceelka qorraxaad bulshaweynta sida aragteen yani u hadlaayeen dhibaatada ka jidhana waa biyo la'aan dhibaatada biyo la'aantu waxay ka jidhaa gobolka Gazafu meelo badan bay ka jidhaa waxbarasho la'aanta meelo badan bay ka jidhaa caafimaad la'aanta waxbarasho meelo badan bay ka jidhaa laakiin haddaynu u bahowno oo aynu step ka dhigno maalinba meel aan wax ka qabanno horumar baan gaarin horumarku sidiisu hal qof ma qaban karo bulsho isu tagtay gacanka wada geysatay wax la isku darsaday $1 $1 $1 waxyaalo la isku ururiyay baa hor bulsho horumar ku gaadha waxaana ku qabsataa alxamdulillah ururku waxyaalo badan buu soo qabtay oo hore u soo qabtay hadda waxaan ku jirnaa insha Allah barnaamijka ururinta ceelka qorraxaad insha Allah markuu ka noo dhamaadana kuwa kale inuu geli doonaa dhammaanteen ka wada qaadan doonaa mahadaasna ilaaha baa iska leh tawfiiqda ina waafajiyay fikirka saliimka ah dad kamid inaga kamid ah ku soo dhacday ummadda kale bulshada kalena ay ku taageertay halkan insha Allah waxaan baaq dheer ugu direynaa ganacsatada deegaanka kuwa gobolka waxaan kale u direynaa maamulka gobolka kuwa degmooyinka waxaan kale insha Allah baaq dheer u direynaa dawladda Puntland tan federaalka ah inay cabashada deegaankan ka jidha oo biyo la'aanta ah oo sida leedinku sheegay dadkuba ay ka barakaceen ama ka tageen biyo la'aan darteed inta joogtaan hadeerna ay iska joogaan fara ku tirsi ku joogaan iyadoo oo biyihii ugu timaado $20 ilaa $25 waa garan karnaa meel fuusta biyaha $20 ilaa $25 ku timaado dhibaatada ka jidha inaan yani caafimaad ka jirahayn inaan wax barasho ka jirahayn in nolosha caadiga ahayd ciriiri galayso marka sida la alligay annana waa ku baraarujinay diyaar baan u nahay dadka reer qorraxaadna waxay naga ballan qaadeen inay 100% ka geysan doonaan gacan u diyaar garoobeen diyaarna u yihiin wax walba oo suurtagal ah oo iyaga yani xaqooda ah ay diyaar garoobeen insha Allah bidin al-karim waxaan leenahay jasaakallah aad baad u mahadsantihiin hawlka hogadi hawshu way noo socotaa kaliya maanta ceelka qorraxaad kaliya maaha deegaan ballaaran baa ina sugaya oo aan mid iyo labo iyo qoraal iyo afmina lagu soo koobi karin deegaankaasuna dadka maanta isu taagay insha Allah binaalka taariikhda xusid doonta aakhir ay ka heli doonaan ajarkiisa ilaah baa ku xisaabi